والإسلام صاحب يا رسول الله وحنا دي هاي عاوة ورد كي يابن دون هدي أد مقشان أفيانك كوحد على الشباب يا شيخ محمود علي الراجي شيخ على دير يا لغوصة ورمى يا إن ما أنت قلنكي دنبه وكبيري كوحد داعش أفيان على دير يا لغوصة ورمى يا إن كوحد داعش كبيري تانجز كدب أي تمادي كدب مركي ساكي كوحد على الشباب أي حاسكيسي عروكيسو مريي قيوة كميدا قبل كشباب على gaar ahaan degmada Masaajid guud meel 25 kiiloomitir u jida qarax lagu eegtay afyeenka ayaa xaaskiisa caruurtiisa lagu soo waramaya in halkaas ay ku dhinteen kadib markii qarax miino dhulka ay ku aaseen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku geeriyoodeen afyeen al-dheer ayaa ka carooday qarax miinada xaaskiisa caruurtiisa la beegsaday kadibna saakay kadib wuxuu go'aansaday in uu ruqaansado dhanka kooxda Daesh kadib markii maalmihii la soo dhaafay soo baxayeen warar sheegaya in kooxda al-shabaab kooxda Daesh ay heshiis ku gaareen magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland heshiiskan ay Somaliland ku gaareen Daesh iyo al-shabaab ayaa ka dhignaa in labada kooxood ay u midoobaan dagaalka ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland balse waxay isla qaateen labada kooxood in dagaalka ka socda Buuraha Almasaad ee gobolka Bari ay u midoobaan kadibna ay soo jeestaan dagaalka dawladda federaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab iyo Daesh in Daesh iyo al-shabaab xilligan xubno ka tirsan horjoogyaal ay isku biiraan misna ay isu hediyeen in labada kooxood ay isdhaafsadaan waxay noqonaysaa dhibaato kale oo dawladda soo wajahday in afay al-dheer uu caaw ku biiray kooxda Daesh ayaa waxay noqonaysaa dhabarjab kale oo kooxda al-shabaab ku yimaaday sababtoo al-dheer wuxuu ahaa nin afayeen ah ka tirsan kooxda al-shabaab una dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab inta badan al-dheer ayaa waxa uu ku sugnaa degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe waxaan lagu soo waramayaa in galinkii dambe ee maanta uu ka soo ruqaansaday isagoo halkaas baabuur qaas ah ka soo qaaday waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu soo gaaro qaybo ka mid ah gobolka Bari ee Puntland sidoo kale daawadayaal waxaa jira warar sheegaya in saacadihii la soo dhaafay dagaal u dhaxeeyay ka tirsan kooxda al-shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug waxaan lagu soo waramayaa in dagaalyahanada kooxda ka wada tirsan halkaas ay isku farasaareen kadib markii laba horjoogo ka tirsan kooxda al-shabaab laba maleeshiya ay kala wateen halkaas isku dagaalka ayaa yimaaday kadib markii labada horjoogo uu soo kala dhaxgalay qalif muraana oo ku saleysnaa dhul ay isku qabsadeen labada horjooge kadibna halkaas labada ilaale horjoogo kala wateen ay isku dab saareen waxaa lagu soo waramayaa in qasaare uu ka dhashay dagaalkaas waxaan lagu soo waramayaa in labada horjooge ay kala watay ilaalada halkaas ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal xoogan oo u dhaxeeyay maleeshii ka wada tirsan kooxda al-shabaab uu halkaasi ka dhacay dhaawaca labada horjoogay ayaa wax lagu soo waramayaa in loo qaado qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha waxaa la rajeynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo aadan loo soo qaado dhanka maamulka Somaliland waxaan la rumaysiyaa in inta badan dhaawacyada horjoogayaasha kooxda al-shabaab ka tirsan iyo kooxda Daesh in inta badan lagu daaweeyay ama lagu dabiibo qaybo ka mid ah maamulka Somaliland gaar ahaan isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa waxaan ka codsanahay inta dinaad la soo gaartay inaad subscribe channelka siina share gareysid si aan u helno saaxiibo adiga oo kale oo wanaagsan aad iyo aad u mahadsantahay